ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa soo afjaray weerar 12 saac qaatay oo al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Xayaat oo ku yaala isgooska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. al-shabaab ayaa in ka badan 12 saac ka dhex dagaalamayay gudaha hotelka, waxaana weerarkoodu u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. kooxdii weerarka soo qaaday ayaa hotelka oo ku yaala agagaarka kiiloomitir 4 waxay weerar ku bilowday qaraxyo baabuur ay ku qaadeen abbaar 7 habeenimo iyo dhowr daqiiqo, waxaana kadib galay maleeshiyaad ka tirsan kooxdaas. waxaa hadda soo baxaya khasaarihii ugu dambeeyay, waxaana la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 20 qof iyada oo dhaawacna uu intaasi ka badan yahay. dadka hotelka ku dhintay ee aan magacyadooda helnay waxaa ka mid ah Allah u naxariistay ganacsada Cabdiraxmaan Xasan Iimaan oo ahaa ninkii iska lahaa hotelka, Yuusuf Mahad Barow, Ibraahim Raage, Cabdi Haadi Maxamed Sheekh Aadan, Xasan Maxamed Faarax iyo dad kale oo fara badan. sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah dad isku qoys ah kuwaas oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan in ka badan 5 qof. dadka ku dhaawacmay hotelka waxaa ka mid ah taliyihii nabadgelyada gobolka Banaadir Muxudiin Warbaacshido iyo ciidamo badan kuwaas oo gurmud u tagay hotelka. dagaalka u dhexeeyay labada dhinac ayaa xalay xilli dambe xoogaystay, waxaana ciidamada dawladda Soomaaliya ay madaafiici ku garaacayeen hotelka. sidoo kale ciidamada ayaa soo badbaadiyay dadyo badan, waxaana dadka la soo badbaadiyay ku jiray hooyo wadata 3 caruur ah iyo dadyo kale oo aad u fara badan kuwaas oo ku go'doonsanaa gudaha hotelka. al-shabaab ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegtay in hotelka ay ku dhex dishay in ka badan 20 qof, waxaase sidoo kale jira in khasaaraha uu intaan ka badan karo maadaama dagaalka uu socday in ka badan 12 saac. hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa goordhow sheegay inay ku guuleysteen soo afjaridda weerarkii ay soo qaadeen dagaalamayaashii hubeysnaa. waa weerarkii ugu horreeyay al-shabaab ay ku gasho hotel ku yaala Muqdisho tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib loo doortay 15 bishii May ee sanadkan.